dowladda federaalku way u baahan tahay midnimadii waxa weeye maxaa ku isku hayntii ummadda Soomaaliyeed bay uga baahan tahay SSC way u baahan tahay gacan qabashada iyo dhaqaalihii bay u baahan tahay bulshada reer SSC waxa weeye maxaa ku dhacday in la dhaqaajiyo ummadda Soomaaliyeed hore loo raro ayay u baahan yihiin waa la isu wada baahan yahay dadka Soomaaliyeed laftoodu midnimadaas waxa weeye muddada badan muranka ku jirtay oo runtii waxa weeye xal loo helay aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan kaloo halkan ka madhnayn reer maakhir iyo reer Puntland oo runtii aynu odhan karno halgankan waxa weeye haddii aanay qayb weyn aanay ku lahayn ma aynaan gaadhneen oo waxa weeye maxaa ku dhahay heerkaa ma gaadhneen aynu odhan karno reer maakhir state iyo reer Puntlandba iyagana waxaan leenahay jasaakumullahu khayr waxa weeye maxaa ku dhahday waxa la yiri man laa yashkuru annaas laa yashkuru allah kuwa aan ma garanaysaa dadka u mahadnaqini ilaahay uma mahadnaqaan marka reer Puntland waa u mahadcelinaynaa garab istaagii naf iyo maalba lahaa ee ay waxa weeye isku keen garab taageen reer maakhirna sidaasi la mid ah reer maakhir waxay kaga duwan yihiin isku duruuf baynu nahay dadka waxa weeye la doonayay gooni goosatadu ay doonaysay inay ka goyso waxa weeye maxaa ku dhahday ay isku ma garanaysaa sida riyada waalida ah ay iska dhaadhicisay inay dadkan iyadu goosan karto ay waxay rabto ka samayn karto ayay ma garanaysaa ka midaysan yihiin SSC iyo waxa weeye maxaan ku idhaahdaay iyo reer maakhir xuduudda ay sheeganayaan ay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin Ingiriis baana siiyey ayay ku wada jiraan marka waa isku duruuf waa isku baahi nin odaya baan arkayay oo waxa weeye runtii si hadal cajiiba ku cabiray khayr Allah siiye oo jooga waxa weeye soo dhaweynta goobta soo dhaweynta fariin ka soo diray wuxuu yiri waa halbowle SSC Khaatumo iyo maxaa ku dhahay reer maakhir Soomaali waxay u yihiin halbowlaha haddii qofka halbowlaha la geeyo ma kaco wax ma garanaysaa maxaa ku dhahay macnana ma yeesho marka waxa weeye maxaa ku dhahday reer maakhir iyo reer SSC waa halbowlahaas waxa weeye maxaa ku dhahay in la ilaaliyo oo la dhowro oo la dhaqaaleeyo buu mudan yahay waa taa fariinta aynu dirayno oo Xasan iyo Xamse aynu u dirayno waliba Xamse iyo dawladdiisii oo joogta golihii wasiirada oo dhan madaxweyntii waxa weeye jabaabirtii golaha wasiirada oo dhan baa jooga dabcan waxa weeye maxaa ku dhahay waxaynu istul taagaynaa insha Allah bidnillaahi karim sidaynu hore u sheegnay Xamse maanta waxa looga fadhiyo Xamse iyo xukuumaddiisa shacabka reer SSC waxay uga fadhiyaan inagoo tusaale waliba hor dhigayna oo tusaale siinayna tusaalahan siinayna waxa weeye maxaa ku dhahday maamulada waxa weeye hadda jira marka laga reebo maamulka Puntland waxaynu ognahay waxa ay dhismeen xilligii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud waxaynu ognahay waxa weeye galmudug sida ay ku dhisantay galmudug iyadoo ay ka jiraan 3 qaybood u qaybsan ayaa waxa weeye maxaa ku dhahay 2 qaybood oo kamid ah iyadoo qaybta saddexaad aanu tagi karayn dowladda federaalka ah oo wax xidhiidh aanay la lahayn ayaa waxay isu geysay cadaado iyo gaalkacayo 2 maamul oo ka jiray ayay isu geysay muddo dheer bay ku bixisay dhaqaale badan bay ku bixisay ku meel gaar bay u samaysay markii dambe doorasho ka dhacday Cabdikariin Guuleed baa markii ugu dambeysay maxaa ku dhahay ka guuleystay madaxweyne ka noqday marka nimankii loo oran jiray Sunna Jamaa way ka maqnaayeen oo caasimada waxa weeye galmudug haystay iyadoo sidaas cadaado ma garanaysaa maxaa ku dhahay caasimad looga dhigay sidaasuna ku dhisay meesha la yiraahdo Jubbaland sida ku dhisay waynu garanaynaa oo waxa weeye dood iyo muran badan iyo waxa weeye maxaa ku dhahay isjiid badan iyo waxa weeye in Ethiopia markii dambe la isla tago oo la islaam garanaysaa maxaa ku dhahay diidmo uu Xasan Sheekh uu diidana in maamulkaasi uu dhismo darteed ayaa waxa weeye maxaa ku dhahay dooda dhalisay Axmed Madoobe ilaahay khayr ha siiya waxa weeye maxaa ku dhahay uu ku dagaalamay ma Ethiopia la isla tagay maamulka in la dhiso oo sida loo dhiso ayaa maxaa ku dhahay marka waxa weeye hirgashay waxa weeye wuxuu kala dhisay maxaa ku dhahay meesha la yiraahdo Hirshabeelle iyadoo Hirshabeelle way ka fududayd marka maamuladaasi waxa weeye maxaa ku dhahay Koonfur Galbeed way ka horeysay iyadoo baan filaya Xasan Sheekh oo iyada lafteedu marbay isku dayday inay maxaa ku dhahay 6 gobol ay qaadato laakiin xilligaas ay ahayd baan filaya uu Xasan joogay iyadana marka waxa weeye sidan hadda ay u tahay shaxda oo amaartay u tahay Koonfur Galbeed ayaa loo dhigay adigu marka ujeedadu waxa weeye hal maalin bay ceel joogtaa Xamse maanta waxa weeye maamulka SSC
oo waxa weeye halbowlaha ummadda Soomaaliyeed ee isku haya midnimada Soomaaliyeed sidii uu sheegay ninka odayga adiguna aad ogtahay maantana waxa magaranaysa adiguna aad ku maxaa ku raadaay aad kula magac baxday mideeye magaranaysa maxaa ku raasal wasaare mideeye waxa weeye maamulka SSC Khaatumana waxa uu noqday maamulkii midnimada markaas waxa loo baahan yahay si aad adigana magacaaga u shaqeeyo oo mideeyahaasi uu maxaa ku raadade magaranaysa insha Allah bidmillaahi kariim uu u sii socdo maamulkana uu u noqdo waxa weeye maamul waxa weeye maxaa ku raad midnimada uu ilaaliyo oo difaaca u ilaaliyo adigoo eegaya oo waliba ay tahay waajib ay maxaa ku raadaay runtii ay magaranaysa de magaranaysa qofka aan magaranaysa wax kale aanay wadanin ama maamulka de magaranaysa maxaa ku raad Soomaaliga ee dalkan iyo dadkan uu magaranaysa maxaa ku raad mas'uuliyadiisa dareemaya waxa weeye waxa ku filan ama ka badan ba wixii ay soo mareen dadkaas imtixaankii ay soo mareen marka waxaan leeyahay Xamse waxa weeye maxaa ku raad xuja ku dultaal hadeerto xujo ayaa ku dultaal maxaa ku raad Xamse waxa weeye Cabdi Barrow xujadaasina waa inaad dadkaas waxa weeye xaqooda iyo xuquuqdooda aad siiso waa inaad ugu dhawaaqdo maamul dhammaystiran oo la mid ah maamulada waxa weeye maxaa ku raad hadda jira taa weeye waxa ay sugayaan taa weeye waxa ay magaranaysaa maxaa ku raadaay u dagaalameen taa weeye waxay nafta u hureen taa weeye waxay dhaqaalaha u hureen taa weeye waxay walaalahood Puntland ay maxaa ku raada ay yiraahdeen magaranaysaa oo ay dhaqankoodii iyo maxaa ku raadaay waxgaradkoodiiba ay go'aan hore uga gaadheen oo dawladuna ay hore u ogolaatay inay tixgeliso waxa weeye maxaa ku raad go'aankii bulshada reer SSC dhaqanku ay hormuud ka ahaayeen Puntlandna ay taa waxa weeye maxaa ku dhawaaqdo Siciid Cabdullaahi Dan uu ku dhawaaqay tii ayaa laga rabaa sharciyeynteeda ayaa laga doonayaa Xamse iyo xukuumaddiisa xujada aynu u haynaa waxa weeye in maamulkaas ay waxa weeye maxaa ku raad siiyaan waxa weeye maamul buuxa ay dubaha ugu dhuftaan insha Allah bidmillaahi kariim wixii caqabada ee magaranaysa kaga yimaada xagga xasanna waxaan leenahay ilaahay nubbu ka dhigay rabbiga weyne waaxidka waxa weeye xiniyahaaga fuul maamulkaasi waa inuu noqdaa insha Allah bidmillaahi kariim mafram laga bilaabo maanta oo aatimi waa inuu noqdaa maamul waxa weeye ka tirsan maamulada maamul goboleedyada Soomaaliyeed oo waxa weeye maxaa ku raada magaranaysa qoondadiisa siyaasadeed leh oo qoondadiisa dhaqaale leh oo waxa weeye maxaa ku raada dhammaystiran halka ayay ku soo afgo'aysaa waxa weeye maxaa ku raada goonigosigii iyo waxa weeye maxaa ku raada kala qaybintii ummadda Soomaaliyeed marka haddii aanad khiyaanay hadaynan waxa weeye aanadan khiyaanayn waxay la tahay wada kale oo idin furan ma jirto haddaad madax wanaag cadaalin tihiin maali maxaa ku raadaay oo maali ka cabsooda waxa weeye waa inaad maamulkaas aad waxa weeye insha Allah aad u sharciyeysaan waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haydin barakeeyo shacabkana mar kalaan u bogaadinayaa mar kalaan u mahadcelinayaa mar kalaan leeyahay jasaakumullahu khayr waxaan leeyahay insha Allah bidmillaahi kariim guul iyo gobonimo haddii baan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ee reer SSC haddii ay Xamse uu ka gaabiyo ilaahay kamaba dhigee haddii uu ka gaabiyo waxa weeye waxa aynu ka doonayno gacanteena ayay ku jirtaa cid iskeen hortaagi kartaa ma jirto SSC cid is hortaagi kartaa ma jirto rabitaankeeda waxa weeye Xasan iyo Xamsena hadday hadda ku dhawaaqi waayaan waxa weeye maxaa ku raada Khaatumo state inay tahay maamul buuxa wallahi waxaan idinku dhaaranayaa inay xilkooda inay ku waayayaan baan idinku ballan qaadayaa insha Allah bidmillaahi kariim waayo waxa weeye cid is hortaagi bulsho isku duuban oo midaysan oo waxa weeye xuquuqdeeda doonaysa cid is hortaagi kartaa ma jirto markhaantina waxa u ah wixii aad soo marteen iyo meeshaad wax ka soo bilowdeen iyo halka aad joogtaan marka waxaan leeyahay shacabka geesiyaasha ah insha Allah bidmillaahi kariim waxaynu doonaynaa oo hadafkeenu yahay Soomaali oo dhan inaynu xoreyno sida calanka aynu u sidano Soomaali oo dhan inaynu xoreyno insha Allah bidmillaahi kariim oo aynu waxa weeye maxaa ku sida aad maanta isugu aayihiina uga tashateen sida aad maamul idin matala oo idinku aad xukuntaan shacabku ay xukumaan maaha madax ka nool shacabka ayaa xukuma maamulka shacabka ayaa le maamulka maamul maxaa ku madax shacabku leeyahay
ayaynu u rabnaa dalka Soomaaliyeed meel kastoo ka mid ah marka ayay ummadda Soomaaliyeed guulaysanaysaa marka ayay ummadda Soomaaliyeed horumar gaaraysaa marka ayay awoodeeni soo noqonaysaa marka insha Allah bidnillaahi kariim reer SSC iyo reer maakhir waxaan leeyahay bishaaraysta haddii maxaa ku dhahay xamse iyo xukuumaddiisu ay ku dhawaaqaan maamulka waxaynu maanta ka doonaynana falilaahi alxamdu iyaguna way ku mahadsan yihiin taariikhdaana qori doonta haddii kalena waxa weeye waxaan ku keenaynaa maankeenna iyo muruqeennaynu ku keenaynaa insha Allah bidnillaahi kariim waana qasab insha Allah cid is hortaagi kartaana ma jirto haddaan innaga caqligeennu xumaanin haddaynaan garan waayin waddada aynu u marayno waxa aynu doonayno waxa weeye gacanteenna ayay ku jirtaa waqti dhowna waynu helaynaa insha Allah bidnillaahi kariim oo kooban marka waxaan idinku bishaaraynayaa insha Allah mar walba inaad guulaysateen SSC Khaatumo iyo maxaa ku dhahay reer maakhir iyo ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba inta samaha jecel waa guulaysateen insha Allah guushaas inayna sii socoto ayaynu doonaynaa inaynu insha Allah bidnillaahi kariim waa inaynu basiiro yeelano oo indhaheenu furnaadaan oo dhagaheenu furnaadaan oo waqtigaan ka faa'iidaysano insha Allah bidnillaahi kariim taasaa inoo ballan haddii alla yari ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته